tanina ma gudnimadii oo gudnimo kala dhashayba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inta aan noolahay tan oo kala ma ii dhimanaydin aan arko saacadihii la soo dhaafay waxaan daawaday 3 muuqaal oo calooshayga soo riday waxaa laga yaabaa haddii in yar dhibic dhiig ah oo fiyo ay kugu jirto adigana inaad la qiirootay sawirkan iyo muuqaalka gabadhan waad aragtay waa dagaal beeleed waxa gabadhan lagu sameynayo dabcan baraha bulshada waad ku aragtay inkastoo aan arkay muuqaal gabadhan aan rajeynayay inay tahay laga soo duubay iyadoo cisbitaal la geeyay oo la dabiibayo waxaan kaloo arkay sawirka odayaashan waxa ay ahaayeen odayaal nabadoon ah sida la sheegay sidaan ayaa wajigoodii laga dhigay iyaga oo nabad raadinaya kuna baaqaya sidaan ayaa loo duleystay okay bal muuqaalkan ila arag ninkani waa nin Soomaali ah waxa uu garaada u xirayaa oo uu ku tixayaa bilado saraakiil Itoobiyaan ah inta uma ogola walaalkiisa la dhashay Itoobiyaanka xitaa naftiisa ayuu hubeenaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa wax ii dhimana oo aan arko okay Soomaali meel ay joogtaba waa ay gubanaysaa arrimo qabiil ayay u gubanaysaa cadawgu wax uu ku farxo oo ka weyn ma jirto Soomaalidu inay dhexdeeda isku jeesato oo ay islayso waligeed qabiilo ayay Soomaalidu isku leyn jirtay iskuna diri jirtay maanta se way ugu sii daran tahay nin abtigeeya ayaa hadda ka horgabiyay gabaygiisa waxaan ka xasuustaa 2 beelood baa isdagaashay markaas buu waxa uu leeyahay inagoo dareen moog ah oo nabad ku daaqayna hadba waxay noo soo duulaan moognahay durbadiiba reer hebel ayaa kibir u soo duulay intuu qolo magaceed sheegay ayuu durbadiiba reer hebel ayaa kibir u soo duulay oo wiilal naga dooxay iyo niman duqowsha maslaxada ragii dooni jiray waayagii dilay waxaan daqaramiilaysanoo dhiigu naga daato dooxatada habeen iyo waxaan maalin dirirnaaba daacuun siduu helay wuxuu meyd isdaba yaalo suu u soo waday buu yiri nin walbaaba nabaduu dalbaday waa dan horwaay markii dadkii aqoonyahanka ay baabeen oo hooyo gablantay oo aabba gablamay oo ilma agoontoobeen oo gabare asay qaaday ayaa la yiri nabadda hurimayno halkii ayay maraysaa niman rag ah oo macna laha oo ganacsata ah oo aqoon-yahano ah ayaa halkaasi ku baaba'aya ugu dambeyntiina waxa weeye inta dan la huri waayo ayaa la leeyahay niman ay heshiin maanta waxa dhacaya ee Soomaali meel ay joogtaba ka dhacayahay waxa weeye waa wixii ugu foosho xumaa cadawguna uu ku diirsan lahaa dhooshana uu uga qoslay cadawgu bal eeg nimankan walaalaha ah ee waxa weeye wada dega ee xigaalka ah ee ku dagaalamaya mudug ee shalay dagaalkoodu uu ahaa midka ugu hadal haynta badan ee aan arkaynay uu ahaa marka si hoose la isku eego waxa weeye waxay isku yihiin seedi adeer abti walaal waxaas isku yihiin waa dad wada dega waa dad walaalo ah waxaas bay isku yihiin laakiin way dagaalamayaan waana ay islaynayaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraankiisa waxa uu ku leeyahay ma jirto musiibo idin asiibaysa oo idin ku dhacaysa ilaa waxaad adinku gacantiina ku kasbateen mooyee waxana waa wax aad gacmihiina ku kasbateen dhacaya hadda musiibadan dhacaysahay waa wax aad gacmihiina ku kasbateen adinku waxa ka dhalan karana ciqaab iyo cara alle mooyee wax kale oo ka dhalanaya ma jirto ka imaw deegaan lagu magacaabo Dacwaley ayaa waxa isku dagaalayay dad ehel iyo qaraabo oo ka soo kala jeeda dawlad deegaanka Soomaalida iyo Somaliland waxaan saaka daawanayay muuqaal 40 qofood oo shacab ah oo la leeyahay deegaankaas baa lagu laayay oo lagu xasuuqay meydadkoodii oo la aasay janaase lagu tukanay ayaan daawanay bal eeg nimankan odayaasha ahi waxa la sheegay in ay yihiin odayaashii halkaasi joogay odayaashii halkaasi rabay inay nabadda ka doonaan isla gabaga hadda aan ku sheegay ninka abtigeeya ayaa waxa ku jirtay kuwii nabadda dooni jiray waayagii dilay qol u dhaleeceynay markaa kuwii nabadda dooni jiray waayagii dilay dadkii nabadda doonayay oo kuwana hafiiri dadkii nabadda doonayay ayaa sidani loo dulaysanaya oo wajigoodu sida yahay yaa ka qurux badan maanta nin doonaya nabad iyo in lagu wada noolaado si sharaf leh ma jiro haddana ninkii haybada iyo quruxda lahaa ayaa sidan wajigiisa loo bedelay oo gaari laga buuxiyay qaybta dambe inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun alla maxadad Soomaaliyeed maxaa naar ay u jeedaan cagaha la galaya isku tuuraya jahannamo ay u jeedaan maxaa dhalinyaro Soomaaliyeed isku tuuraya aan aragna nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix wuxuu ku leeyahay geesiga qofka geesiga ahi waa qofka hanta nafsadiisa marka uu careysan yahay waxa leeyahay reer hebel ku duulay markaas uu meel kasto oo uu joogay uu ka soo ordaya social media ka taageeraya qoray buu qaadanaya naftu u horaya meel kale uma socdo jahannam u socda ninkaas janno uma socdo ninka u ordaya dagaal qabiil jahannam u socda okay taa marka laga yimaado bal ninka muuqaalkiisa ilaa
waxaad arkaysaa ninkan inuu saraakiil Etoobiyaan ah garaada ku taxayo ama quuro walaalkiis la dhashay inuu habeen gurigiisa seexdo ma quuro waxa ay rabaan in ay bad siiyaan oo dhul siiyaan oo cir siiyaan oo hanti siiyaan oo wax kasta siiyaan shisheeyaha qofka Soomaaliyeed ee la deganna ma rabaan in uu gurigooda habeen ka casheeyo ma gunnimo ka weyn baa jirta Ilaah baan kugu dhaarshay iska daa in waxa qofka adu aad leedahay walaalka aad u diidee wixii sibaad ku qabsanaysaa oo aad kula dagaalaysaa war waxani waa maxay arrintan waxa looga gudbi karaa hal qodob dadkan dagaalamaya ee aad arkaysaan dhammaantood waa jaahiliin dhammaantood waa juhalo waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan maskaxdooduna way daxalaysan tahay wax aqli ah oo ay leeyihiin ma jirto maanta waxaan u baahanahay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaan u baahanahay in aan badbaadino jiilka dambe ee soo koraya kuwa hadda jiraahay waa wasaqaysan yihiin waxaan aad arkaysaan ee dagaalada u sacabtumayay waa wasaqaysan yihiin waxa loo baahan yahay dadkan in wax la baro oo diinta iyo maadigaba la baro maxaa la barayaase maanta culimo noo joogta ma arkaysid hal wadaad يا هل شيء ومساجد تك استاجر دهيا ورعلاد الدمية ما أرجنا علماء وجوا وينيد الصوماليات بيشوكتا دتك إسلينا يا أنا وضد هذه أي باق قدرنا أفكار فهمية محي وأمسيهين علماء محي وحجرات كي كلا وأمسيهين علماء ما أنت جوكتا وحوي إن الدب السجون نقدان أو أي أرنتها سكدي ديان أو أي كهذا ووح مضنا لكن أي كأمسين وكجاب سدين أوكي maanta waxaan u baahanahay marka dad waxaan u baahanahay Soomaaliyeed oo meel kasta ka soo kala jeeda oo aqoon yahana ah oo dhalinyaro ah oo baradadkan sida loo wada noolaado ma yaqaaniin sida loo wada noolaado waxa loo baahan yahay in la baradadkan sida loo wada noolaado adduun dad aan isku af ahayn dad aan isku diin ahayn dad aan isku dhaqan ahayn ayaa wada nool sida loo wada noolaado oo dad isku af isku diin isku dhaqan ah ay u wada noolaadaan waa in la baradadkan ها dadka u kacaya kooban ka ahay koobanka qofka koobaad baan ka ahay waxaan nafteyda iyo dhiigayga iyo waxaan haysto hanti u horaya in nabadda Soomaaliyeed ay noqoto mid meel kasta iyo guri kasta iyo qof kasta camimta oo gurigiisa ugu tagta ayaan diyaar u ah hadalkaas aan leeyahay iyo baaqa aan jeedinayo waxa jira dad qalbiga ka dhintay oo dhibsanaya oo aniga dhahaya qabiilkaaga u laabo sida yeel Soomaaliyeed meel aad joogtaan dadkani waa dad wada dhashay oo walaala war cadawgeenu wuu ku farxaya war meelu joogo cadawgeenu waa ku farxaya war nabadeenu macna weyn bay leedahay war ina wada noolaano macna weyn bay leedahay war waxa weeye cadawga gaalada ah ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu lacnaday ee Ilaahay ka dheeraaday ayay maaragtay qalbi jab ku tahay inaan midowno oo aan iscafino oo walaalo noqono oo wax kasta isaga tanaasulnana guud ahaan dadka muslimiinta ah iyo dadka Soomaaliyeed ayay faa'iido weyn u tahay aan nabadda doondoono wassalaamu calaykum haatana waxaa socda wejiga labaad ee timabeerista ee isbitaalka Samakaal xarunta aan ku leenahay magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Bagland bilicda timaha waa adigoo ka beerta isbitaalka Samakaal adigoo kala xiriiri kara nambarka shaashada kaaga muuqda Samakaal ugu imow qiimo ku qanciya iyo shaqo waxtar leh ballanteenu waa Samakaal Hospital